السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هالكاد يجي جدا وأنا كتاب أفشيال اللي وقت جهدي وأنا أصحابي واحد اللي قلب بنكسن أنا قلب يتهاي أديك هالسيدة يقطع ينكو سلامي هذا اللي بيقطع هذا قلب قطع هذا صباح قطع هذا يقطع حلو والبو ساعات هذا نوت كوارا دونك بيكستا كجوكتان سومالي وين ما بيكستا دونك كجوكتان وحد يرجيني إلى إلهي يكون نبضيالو maxaa wadaa qaybtii labaad waana qoys waxa ugu tala galay dhalinyarada Soomaaliyeed oo jiilka soo baxay guri dhisanayo guri dhisan rabo marka waxaan doonayaa in Ilaahay yiraahdo wax yar nila wadaaga qaybtii labaad abaay aboowe hadii reerka loo sabrin reer ma dhaqmayo hadda reerkaad u sabirtid adiga ay ku anfacaysaa waayo waxa ugu tala gashay ayaad helaysaa sabirkuna waa shay qaali ah waxa loo baahan yahay gabar inaad ninkaada la tirsan waxa loo baahan yahay inaad hadalka ku dhaho oo ku soo celin oo hadii macquul tahay waxa oo markaas diinta diidayso kale taado ku dhaho waa xor ayaa u tahay waayo wixii inta salaad duka kartid ka ahaan asaga uu leeyahay iyo wixii faralka Ilaahay ku faray inta ku diiday waa iska celi kartaa laakiin waxa weeyaan inta kale inaad u noqotid sooja xaquuq soojena jiro waxa jira xaquuq soojeen adiga xaq ayuu ku leeyahay ninkaada naagtaada xaq ayuu ku leedahay waxa weeyaan waxa rabaa in la isku dul qaato maanta hada adiga qiimisid asiga qiimiyay reerkii miyay khayrayaan maya la faa'iidaya maya mar isku nasanaya maya waxa la isku soo gursan iska helaa maya ixtiraam si oo ku ixtiraam ayadana adigna sida ku ixtiraamto walaal gabadha waxaan leeyahay Soomaaliyeed inaad sabirtid ayaa fiican waayo waligood gabdhaha Soomaaliyeed aad ay u sabir jireen reerkana ayaga ayaa dhaqi jiray nina sabrina waxa la yiri soo mucno sabraasad leh abay macaan waxa ku leeyahay ninka ku qaaliyo tartiib kale tartiib sabaa wadaji oo saas soo karaay ku soo galo asoo istuuf ku soo galo asagoo wax walba ee hada ku soo galo waxa rabaa halka uu ku nasanay ninka waa guriga أبا هذا كلها نكور هذا أترى نكور يا سيدنا فعاء أنا بقبل فعاء هذه هذا ولا قد تبيركي هذه من فعاء هذا ولا قد تقول قوس كأنتي أو شل قرش كبيسي أو قبل له فرستي هذه إنه أبو كرامي غير كادومتي معها قوس قيلك وما اسمه وكل اسمه إسقيمين يتقدرين قوس كل اسمه يتقدرين قوس كل كوبلا amba aad oo ku weynaada amba raas weyn aad ku noqon kartaa walaale amba abaay amba aboowe inaad sabirtid waayo sabirku waa sabirka badanna wuxuu keenaa faa'iidooyin badan oo adiga ogeyn oo soo arkay waayo marka anigana la dhalaayay hooyooyinkeen iyo aabaheen ma ahayn laba qof oo isku dabeecad ah ma ahayn laba qof oo hal meel isdhahay aan leeyahay wad labada qof mid baa lagu sabriyay guriyaha aragtin oo quruxda badan leh oo dadka qurxoon carruurta qurxoon ma sha Allah la ka soo baxayaan waa sabir waxa qof waa ku dhisayaan guriga qof dabeecad xun ayaa jiro qof dabeecad fiican jiro qof dabeecad fiican iyo qof dabeecad xun labada dabeecad fiicnaa ismaha show labada dabeecad xun ismaha show labadii fiicnaa hadii la isku aadiyo labadii dabeecad xumadiya dhaqaayo Ilaahay ayaa ka dhigay isu dhaaf hooy fiican arkayso miskiin oo sabrayso reerkeedu u eeganayso haddana ninka karka ku haayo yaa qay tartiib sawaari haqa lagu yeeshay maalintii meherkaada ku dhacay ayuu haqa ugu yeelatay waayo waajib Ilaahay ku saaray waayo hadee taajid kasto adduunka aad tahay Ilaahay wuxuu ku saaray waa waajib inaad siisaa inaad ixtiraamtaa waa inaad xaqeedii ka soo baxdaa dad waxa arkaysa ayagoo shaqo ku lahayn guur amba gaarin marka ku dhahayo ma ayna qaan gaarin waxa weeye jeebka waayo ragga ninka ragga ah markuu jeebkiisa dareemo ayuu jiriyaa mustaqbal iyo reer isto laakiin hadda waxa jiro waxa weeyaan dhibaatooyin qoysaskii si farbateen furigu uu batay isfahanka uu bartay isfaalaantiya badatay dabeecadiya kala dhubtay waayo marka shalay soo sheekaysanayeen ma ahayn laba isku dabeecad ah I love you wala iska helitaana jirin jacayl laakiin ma jirin jacaylka rasmiga wuxuu yimaadaa markuu meherka dhaco kadib amba kuga shaxalaashay
waayo taas waa xaqiiqo waa la ogyahay waana faral ilaahayna faray inaad jeclaato ninkaada xalaasha ku inaanan jeclaan nin ajnabiga keelitaan ayaa la dhahaa marka is-shukaansisin jecel maaha waa keelitaan rabitaan israadsi iyo kalkacaylsi iyo isdoonasho iyo reer in la dhiso ayaa laga shaqeynayaa laakiin jacaylka dhabta ah waa markuu biirka dhaco ya oo suuratu nisaa la akriyo marka qur-aanka waa naqaanaa mudaandin markaasaa wuxuu noqonayaa jacaylkii dhabta ahaa oo ilaahay raalli ka ahaa oo idin fasaxay ilaahay subxaana watacaala malaa'igihii garbaha saarnayna ee wax dambii kuu qorayn ajir maahane saa sax maaha walaala commentiga waa adiga dhankaaga abay macaantu markuu gurigu ka imaado oo bazuurka uu ka imaado oo suuqa ka imaado shaqadoo kale markuu ka imaado baliis abay u dulqaado waayo wuxuu u shaqeynaya waa adiga wuxuu u ordayo waa adigii carruurtaada wuxuu ka fikiraya waa adigii carruurtaada walaal markuu adiga kaa fikiro oo carruurtaada uu ka fikiro waajib ay ku tahay inkastoo waajib ay ku tahay haddana adiga soo kuu qiimeeyo oo shaqada kuugu aadayo markuu banaanka kasoo caroodo ama banaanka kulaal kusoo qabto stress kusoo qabto banaanka waxaa la rabaa inaad biyo qabo hoos dhigtid iyo hadal macaan ninna xoog wax kuma laha nin taleefanka fiirnaya no jooja baa dig haddaa ku jiro jirto taleefankiisa ku dhusqus haata ka joog adiga daawanaya waa baa ka joog waayo waana iga tahanina kuma nicba baaya inaad ninkaada raaliyo noqotid oo ogaatid wuxuu yahay laakiin waxaa la rabaa inaad sii dabagelin oo afaarihiisa anteerna iyo howlihiisa aad sii dabagelin markuu buuqsan yahay ayaan kuu sheegayaa oo magaalada uu kusoo fudaado kale waxaa la rabaa inaad nasteexa tustid waayo beri ajir ayaa ka helaysa haddaa ninkaada raaliyo noqotid walaa jannadaa ku gelin sida qur-aankeena cadeeyay hadda xadiisi ay kusoo arooreen waayo addoommada ilaahay wuxuu keenay isku nastaan diintaada isteexada ilaahay wuxuu keenay lagu raaxaysto lagu nasto la isku nabadgeliyo diinteena waa nabadgeliyo waa diin nabadgeliyo maaha diinteena diinta oo laga naxo waa diin isteexe ah waa diin oo dadka dariska nabadgeliso ma fahamteen marka waxaa rabaa odagaada inaad abaayo oo u noqoto raaliyo ninkii hela raganima ku faane rasmaalka dunidiyo raaliyo ninkii hela raganima ku faane raaliyo noqo ilaahay raali ha kaa noqday abaayo waa ku baryayaa qaylada iyo stresskii buuqa kadee adiga ayuu kuu maqan yahay adiga iyo carruurtaada ayuu kuu maqan yahay adiga baa fikiraya markuu shaqada joogo hadduu guriga usoo xiiso wallaahi waxaa tahay janno gasho hadduu guri kasii carro banaanada uu kusoo nastana waxaa tahay ahoonaar haddaa mid kuu sheegaa lahay banaankaas duqso oo ku kafaaxay oo ku qoslaay oo sheekadiisa dhacayso markuu guriga usoo socdo u yidhaa tiya kaa horeyso ni maqlay baay tii adil u dhaa iska ilaali kuuma fiicneen tiir jab ilaahay nagama dhigo tii inuu ku dhaadhikaadana ma fiicno waxaa rabaa markuu imaadaayo baay inaad soo dhaweysid qalbi furan haddaa niyadsan oo kaala arag iska oo adiga iyo gurigii iscarfiseen oo kaala arag laakiin gurigii iyo daashka iyo wixii isdhex yaardo imaaday iyo carruurtii saaka loo geliyey suuligii surwaalkii yaraa oo xafaayadaha hadda sanadkaan la bartay xafaayadihii lagu xidxidhaayay abaayo sharaf kuma aha naagaha maxaa naagana laga raadsaday leeyihiin adigoo laba dhali maxaa naag loo raadsanaya adigaa lagaa arkay waayo ninka ragga hadduu 5 wiil waxaa la yidhi shita ma carfiso 5 wiil markaa dhigayso abaayo haddaa adiga iska dhigin madan igaraa la ahaadaya haddaa ku xadgudbay xagga dhexeeda ayaantan waa laysoo qabanooyaa laysoo qabani walaalayaalo 5 wiil kuma carfinayso abaayo adiga haddaa iscarfin adiga haddaa macaan iyo dhadhan iskaga dhigin ninkaaga abaayo waxaa rabaa inaad ugu xiiso waxaa rabaa markii taleefanka la soo waco hadduu suuluhu ku jiro inaad fiirin waxaa rabaa aad ka dhigtid free waxaa rabaa oo asagana ku qancaya amba anigana sharaf noo gabdhihii tii qaylinaysa iga dambayso ceeb waaye baay waaye ceeb waaye in lagu dhaho tiya qaylinaysa tiya isoo wacayso muu maqan yahay ilaahay ka cabsa baay naagaha gurigiisa keenin dibadda kaa jira haysdhihin baay waxaad tahay sameyn malaa'ig ayaa garbahaada saaran waayo mustaqbalka wuxuu qabowgaas u joogo baay waa adiga dartaada wuxuu wax u raadinayo amba uu maqan yahay oo kuu keeno qurbaha waa madaxaada
markuu xag ku geena saaxiibay bisaar ha noqonin oo naago boorso oo wanaag sheegayo maqaalifooyin oo ayagoo ilmahooda ilmo dhaleen oo haddana markuu ninka meesha geeyo muqaalifo oo sida faraska wardayso wallaahi maalinta qiyaam faraska naaftaa geliya أنا بين بوشي أنا شيخ مئي لكن واحد كسو قد بيان هاي وحن جعلها وناق قويس كصومالية أنا جعلها أذي هو أصيل أقول داس مس أذي اختيار كان نارا أيوة تدك الجلو إلهي لقى عبسه أيوة تلا إسكالافة من كان الدروجي حلال قطعا يفوتاي هدوني كان يقولين والله وحرام كم يقول لي هدو أصيل أذي أصيل رالي كان أيام دادي بتدري أذي قصاص وكلا يرادو أو قاضي واي أمانة لا يا أمانة إنسان ما أنت واحد مالين عين دد ولا مسلايان أمر واشيق أنا الشيق قرط بحال عنك إلهي بيسك عبسه ومدنا نمد كريو ومدنا وحفي عن الشيء اللي هو وحفي عن كل معها إن يوتيوب على وفرته وحرف الشك عرب كان مقرين يا أخي ما أنت قيام والله وحكون قراءة مرتاح فترة سديستا مرتاح تكون قناص هذا بين حرام إيه فقسي العقل عنو يسلم بالمال سينيس كرة سينيس كجوك حتى وقت جوك يعني bulshadu waxaa rabaa inaan idin sheego duleeyraado gabadha way qaylinaysaa waxay u qaylinaysaa ninkiyaa soo daaho wuu soo daahi karaa qofka bilaadanka naqaska ku dhajin fursad sii gabadhiyaa soo daahdaa leeyahay ninkiyaa qaylinaa waaye maxay kusoo daahaysaa adaa qabtid xalaashaada waaye wixii eeda samayso wallahi ilaahay xataa kama cafinaayo ya labadaa la cafin maalintaa xijka tegaysa waxaa waaye sinada gogol dhaafkaa samaynaysid iyo maalinta qof muslim dishid ama qof bilaadan oo ilaahay ku banaan dhigiis labadaas baa aqal laga macafinayo qof kugu lahaay leeb ku cafinayo ninka dad ku ogyahay oo u sheegtid waxa ka gashay dambi uu ku cafinaya ilaahay raali ku noqonaya laakiin hada luuqa soo maraa tiraadi alla ka cabsiga tuurtid xushmad la'aanta tuurtid ninka aad xushmay weysid hooyo la aynaya hooyo macala baa ku yaal saaxiibadii hadda kor sheegtay حمدي دائما صاحبتي نحلا أباها كيالا قيرنا يسأل في ساهتري نحلا أباها كيالا وارد كابوس ايه قدرت ايه قدرت شناش معايا عبد مطالب ما شاء الله يا الملك عاي احترام قولك معها قول مسلم وما اسمه ولا أديك دا بقول يسيد ولا يسيد أصحاب تاعه أو نسي وذاك وناجي وايفاف والفافيا هذا حبانتي أو الفافنا يا قف هناك شيريس بحر الملك لكن على قوة حالي المقبض خفك على قوة مقبض واي هدا اسكي إلى السجوح منك على رالك إهان أو تراد أدعي أديك أنا قبلت أديك هذا كل أدعي على مرة هنك أديك نفتك على حشمك وولادها هاي حشمك كقرح بالناسي هل كسر كمان يسلم مرة هايو إنه هي بالواي وحليه هناك هي بالواي بين مياس أصحابي يكون تيجي بسقرة نرجع حق مرة يسهب لا هي بالواي ما قراب ملونا هاي waxaan leeyahay naagta hebel heblaay naagtiisa ninkaan uu qurux badan yahay baa macaan waxaan leeyahay hebel ma dhahay ninkan waxaan leeyahay heblaay ninkeedii alla uu qurux badnaaday ninkaan uu qurux badnaaday in la dhaha rabaano laakiin ma aha alla naagta soo guursada ninkii uu hebel oo noqday waa ka daray guurka ugu daray guur lagu qurxnaada arki jirnay naagtan maxaa qumayo ku noqotay aad weeynaaya marka goomaha ka dheeraadaan ninka asal qurux badan ku guursaday birina oo goomaha soo dheereey naa lagu caynaya adigana aad balaaran tahay sida fuustada biyo aan ku shooy jirnay igara lahaday afta noodka baa gabdhiga waa jeclahay waxaan rabaa naxdii sheeg ninna waa la sirtaa nin hadaa sirtid adaa iskale ilaahay ka sukmo xoog iyo ataatoori iyo nin waxa ku malaha ma fahanteen أصحابي waxaad leeyahay waxaad leeyahay sheeko badan oo iihay hadii la yiraahdo maanta qaybta labaad waaye waxaan idin dhahayaa share-ka like comment subscribe-ka iga caawiya waxaan idin leeyahay walaal isku dulqaata ilaahay inuu idin naxariisto isku naxariisto inuu ilaahay idin naxariisto naxariista ilaahay hana wada gaarto waxaan idin leeyahay ummadda ilaahayna hala nabadgeliyo ummadaha ilaahay oo abuurtay hala is nabadgeliyo adduunka quruxda badan wuxuu ku qurxoon yahay nabad iyo wada noolaasho bulsho kastana waxay sharaf iyo qiimo ku leedahay inay dariskeeda iyo adduunyadeeda iyo inay nabadgeliso sheekooyin badan waa idin hayay insha Allah arrimaha qoyska way tiro badan yihiin darisyada kamid ah asxaabay waa idin socotaa way wada hees waa la wadaa ma fahanteen waa idin wadaa walaalo warka waa idin wadaa haddii ilaahay xilligiisa habeen kasta 4